Assalaamu calaykum. Magaalada Srebrenica waa goob ku xusan murugo iyo xasuus xanuun badan oo muslimiinta Bosniya ku reebtay mahadho xasuuseed oo aan marnaba maskaxdooda ka baxayn. Srebrenica waxay markhaati ka ahayd magaaladani xasuus lagula kacay dad shicib ah oo muslimiin ah. Waxaa la dilay carruur iyo ciroole, waxaa la kufsaday haween, tu xaas ah, tu dhalinyaro ah, tu carruur ah iyo tu waayelahba. May dhaafin xataa gabadh xaamilo ah. Dadkaas oo dhan waxaa dhibaatadaas loogu geystay may ahayn wax kale, dembi kalena may gelin, balse dembiga lagu xasuuqay wuxuu ahaa inay muslimiin yihiin. Waxaa laga joogaa dhacdadaas 26 sannadood. 11 bishii Julaay ayay ciidamada Serbiya soo galeen dhulka Bosniya ee muslimiintu degto. Magaaladan ayaa ahayd mid sugaysay dhacdadaas foosha xun ee ay geysteen ciidamada Serbiyiintu. Waxa ay gowrac, rasaas iyo jirdilba ku dileen 8,000 oo qof oo muslimiinta Bosniya ah. Maanta oo kale oo ku beegan taariikhdaas ayaa la xusaa dhacdadaas. Allah u naxariisto. Da to bude provođen kroz potočare, meni je ovo teško sve što pričam, ali ja sam morala se nekome izjaviti, ja ne mogu više.